waxaan maanta idinku yeedhnay in badan waxaad arkayseen qolo xukuumadda ah oo shalay ka soo noqotay Nairobina ay ka hadlaysay marar badanna ay ka hadleen xukuumadda ay ka hadashay arrinta doorashooyinka waxaan doonayaa in bulshada Soomaaliland u cadeyno arrinta doorashooyinka ee muddada badan muranka ka jiro ama hadalku uu ka taagan yahay xisbiga wadani marnaba kamay soo bixin in uu waqtiga ay doorashadu u mudaysan tahay inuu wax dooda ka keenay xisbiga wadani taas bulshada waxaan u cadeynaynaa inaanu xisbiga wadani doorashada xilliga ay u qorshaysan tahay inaanu marnaba wax dooda ka keenin sanadkan dabayaaqadiisana uu diyaar u yahay doorashada dhacaysa inuu ka qayb galo arrinta muranka iyo doodu ay ka taagantahay muddo 14 bilooda doodu ay ka jirtaana ma aha xilliga ay doorashadu dhacayso waxa weeye 14 bilood sidaad ogtihiin muddo gaaraysa waxa ay doodi ka taagan tahay ama muran ka jira komishinka maanta jira inuu baneeyo komishin cusub oo loo sameeyay inuu yimaado arrinta aanu xukuumadda isku hayno muddada 14 biloodina waa labada qodob weeye labadii qodob oo ay bulshada iyo in badan aad aragtay iyagoo garoomada iyagoo ka sheegaya mahawiyada ka sheegaya in ay tanaasul muujiyeen wali labadii qodob sidii ay ku bilaabmeen ayay ku taagan yihiin ilaa imankana wax tanaasula oo ay ka keeneen iyo wax gorgortan wanaagsan oo laga heshiiyeyna ma jiro arrinta commissionku waa kaas wada ogtiin commissionki wali wuu joogaa arrinta saami qaybsiga commissionka qaybtiisa sida loo qaybsanayana ayadana waxba kama ogola marka labada qodobba sidii bay u taagan yihiin 14 biloodna way taagnaay waxa ay leeyihiin waanu ka tanaasulnaa waxay ku wanaagsan tahay inay ummadda u sheegaan iyaga oo qodobaynaya bal waxa ay ka tanaasuleen iyo waxa ay doorashada ay qabanayaan wada hadalkeedu taagnaa ay ummadda u sheegayaan ay dhowr goorna ka hadleen ay yiraahdeen waanu ka tanaasulnay inay ummadda u sheegaan ba ayaa haboon arrinta meesha taala waxa weeye xukuumaddu waxayna leedahay xeerkii doorashada annaga samaysanayna komishinkii doorashadana annaga wadana shaqaalihii komishinkii iyo hawshiina annaga diyaarsanayna wax allaaliya wax kasta oo doorashada ku saabsan annaga dhammaystiranayna doorashada sidaa ku soo galabayna leeyihiin haddaad diidaanna xoog baanu ku qabanaynaa arrintaasi waxaanu leenahay arrinta caynkaas ay leeyihiin waxaan leenahay war arrintaasi arrin meesha taalla iyo arrin leeg midna maaha arrin Soomaaliland ka suurtagelaysana maaha doorasho xoog laguma qabto doorasho RRU laguma qabto doorasho military laguma qabto doorasho nin quri ma qabsado doorasho cid baa ku tartanta doorasho cid baa wada gasha doorasho cid baa ka heshiisa farsamadeeda cidda ay ka dhaxaysa ka heshiisa marka waxaan leenahay war doorasho xoog ku qaban maysaane doorashada commission inoo qabta oo aynu qaybsano aynu ka wada hadalno ka heshiino doorashada xilligeedii ha inoo dhacdo doorashada ka daaya hagardaamada ayaan leenahay Nairobi tagano beesha caalamka la soo warramayna beesha caalamka waxa halkan ka jirana way ogtahay beerna looma sheego beesha caalamka waxaan isku ahayna way ogtahay labadan qodob inaan isku hayno beesha caalamku way ogtahay qodobo kale oo doorashadu ay leedahay saama qaybsiga ka mid yihiin in caqabad ku yihiin doorashada way ogtahay beesha caalamku maaha cid qof soo warramo oo warka qofkaasi qaata sida ay sawirka ay ku muujinayaan maaha beesha caalamku wax kasta oo halkan ka dhacana way ogtahay waxaan isku haynana way ogtahay ilaa imika inaanay wax
wixii la isku hayay wax laga dhameystiray oo laga heshiiyay inaanay jirin beesha caalamku ay ogtahay marka beesha caalamku wax inta geed loogu tago been loo soo sheego ma arinta kale de waxaad arkiiseen oo shalay wasiirkuna ka hadlayay ayaamaha meelaha warwareegaysay in Cabdishakuur iyo arrinkiisa in Cabdishakuur maaha xukuumadda markii ugu horeysay ay la kulanto markan waa markii labaad bay noqonaysaa ama markii saddexaad inta la hubo kal hore waxa la kulmay hadaya Cabdullaahi Abukar baa maka kula kulmay isagii mas'uuliyiin kale haddana de wasiirka arrimaha gudaha la kulmay waxa kaloo jirta de rag kale oo mas'uuliyiin oo ka mid yahay ninkii sirdoonka Soomaaliya haysan jiray Samboloshe inuu markasta Hargeysa yimaado hodheelada Hargeysa mid ka mid ah la dejiyo markasta xukuumaddu ay dejiso marka dad iyagu noocaas ah ay de la kulmaan mas'uuliyiinta xukuumaddu ay la kulmaan aan ahayn wuxuu baan u aragnaa inay misliin ku sameynayso arrintii qadiyadii Soomaaliland iyo wada hadalladii oo dagaalku meel aanu ku jirin de ay ka deydayaan waxa weeye tii ay ku eedeynayeen wadanina ay mar walba iyagu faraaq kula jiraan wadani oo marnaba sheegan ama marnaba aan cid kala kulmin inay mar walba waxa iyagu gacanta kula jiraan oo faraaq kula jiraan goob iyo galgalin kula kulmayaan in ay cid kala ku eedeynayaan taasina waxay u muuqataa waxa iyagu wadwadaan inay dadka reer Soomaaliland ka qarinayaan marka waxaan leenahay Soomaaliya waxa inaga dhaxeeya wada hadal Soomaaliya waxaynu kala baxnay 1991kii waxa isugu keen hadhayna waa inaynu dariiq cad iyo wada cad ku wada hadallo wada cadna ku kala inta isugu keen hadhay aynu ku dhameysano Soomaaliland kama mid aha maamul goboleedada ka jira Soomaaliya laakiin sawirka ay u soo qaadayso xukuumadda maanta jirta ayaa wuxuu ka dhigayaa Soomaaliland inay ka mid tahay maamul goboleedada Soomaaliya ka jira marka ay siyaasiyiinteeda iyo dadka aan iyagu waxay isku hayaan marka adigu dhaxgashu leeyahay waliba waxyaabo diplomatically khalad ah oo dal kale inaad kaga dhawaaqdo jabhad baan u sameysanayaa iyo ciidan baan u sameysanayaa wixii adigu aad cidda is haysaan aad kaga hortagi lahayd inaad media isla soo taagto taas lafteedu waxay tilmaamaysaa tamar darrada iyo awood darrada halka ay marayso marka waxaan ku soo gabagabeynayaa wasiirka arrimaha gudaha ee nale xoog baan ku qabanayaa doorashada de hadalka su'aasha la weydiinayo cid uma soo igmadeen haddii tamartaasi ay jirto marka waxaan leenahay war miiska wada hadallada ee aynu doorashooyinka ku qabsanayno aynu ku soo noqonno waxa qadiyadeena fool xumaynayna aynu iska dayno aad baa mahadsantiin kama lunsana wadada oo u marayo qadiyada goonisutaaga Soomaaliland kama lunsana maqaaxyahana kama baarbaaro sida xukuumadda kulmiye iyo afhayeenadeedu ay u hadlayaan kama maqaaxyaha kama baaro arinta cid baan meel ku marti qaadaya iyo haddaba way marti qaadaan laakiin waxa leenahay in waa de arrin khalad ay sameynayaan waxay isleeyihiin way qarsoomaysaa way marti qaadaan Hargeysa ku marti qaadaan Hargeysa yimaadaan mas'uuliyiinta waliba mas'uuliyiin waxba ka gooyin oo qadiyada Soomaaliland aan waxba ka qaban kareynin ayay marti qaadaan marka annaga nagama lunsana wadadan u marayno goonisutaaga Soomaaliland iyo qadiyada Soomaaliland nagama lunsana maqaaxyana kama baadhno meel hoosana kama baadhno marka wadadu way noo cadahay laakiin iyagu sida ay u wadaan de waa arrin khaldan shacabka Soomaaliland baana ka garnaq doona xisbiga wadanina ma qariyo meel uu cid kula kulmay iyo kulamo noocaasna ma galo magacaygu waa Yaasir Rashka xukuumaduna waxay leedahay waxaanu diyaar u nahay inaynu dhageysano tabashada xisbiga wadani u tabanay tabashadiinu maxay tahay aad sa tabanaysaan taxigtaanku weydiinay waxa weey gudoomiyaha komishinka Soomaaliya waxay sheegtay in ay qabanayaan
doorasho cod iyo qof doorashadana ay gaarsiin doonaan gobolada Soomaaliya oo ay Somaliland ku dareen arinta iyada idinku sidee idin la muuqataa xisbiga wadani arinta koobaad waanu waxaan isku hayno doodeeda 14 bilood bi socotay waxaan isku haynaa qodobo kooban baan isku haynaa commission in la bedelo commission kale cusub yimaado commission kale la qaybsado qodobo noocaas aan isku haynaa kuwii baa wali taagan 14 biloodna way socdeen marka diyaar doorashadu waxay noqonaysaa doorashada waxa uu ay noqonaysaa doorasho loo dhan yahay marka waxyaabaha la isku hayo xeerarkeeda la dhameystiro saami qaybsiyaa jira waxyaabo kale jira marka waxaas dhamaadaan bay doorashadu ayay doorasho loo sameeyo ay noqonaysaa laakiin doorasho xoog lagu qabanayo oo la leeyahay ciidamada ku qabanana waan ku jabnaa RRU baan ku qabanana wasiirka arrimaha guduhu ordayo oo isagoo tiisiba ay uu ku fashilan yahay uu leeyahay doorashan qabanaya arinta qaladka ay wataa arinta gabadha oo ay ka hadashay Soomaaliya waxay arkaysaa gabadhu waxaan ay farfaraynayaan qolada xukuumadda joogta iyo ayay arkaysaa laakiin waa qof geed cidla joogo uun hadlay baan u ahrnaa Soomaaliland doorasho ay ka qabanayso Soomaaliya ma jirto doorasho ay ka qaban kartaa ma jirto marka qof kasta intuu meel istaago uu hadli karaa marka taa ma wax xigmada ku jirta ma jirto Soomaaliland iyada doorashooyinkeeda iyo nidaamkeeda iyo sharciyeeda iyo wadanimadeeda iyagana wax wada qabsanaya cid kalena uma qabato Soomaaliland Soomaaliya kama mid ah caqabad ku ah in laga hor qaado lana dhameeyo xeer wixii fura ahaa waxani waa dood halka ka bilaabantay qodobadan koobaad ee keenaya in la wada shaqeeyo oo waxyaabaha kalena laga wada shaqeeyo ayay qodobadan u soo hormarayaan laakiin qodobada doorashada ku xeerani maaha labadaba qodob waa qodobo fara badan laakiin qaar badan baa gaar ugu xidhan madaxweynaha in uu talaabo uu ka qaado oo ay ka mid tahay saami qaybsiga iyo waxyaabaha la midka ah